sidaan soo tilmaamay waa caraaritaanka, tala saarashada, baryida, yani u hogaansamida, yani jacaylka, waxaasoo dhan Allah jalla wacala inaad u khaalis yeeshaa weeyaan. Alxamdulilah, uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam, ama bacd. kusoo dhawaada barnaamijkeenii ba'kaada baro ku dhaqan diintaada. walaalayaal, haddaad nagu cusub tahay, kusoo dhaweyneynaa gacmo furan, qalbi wanaagsan, waano wacyigelin iyo la talin ayaan kugu soo dhaweyneynaa. haddaad naga mid ahayd oo horey noo daawan jirtayna waxaan ku leenahay ilaahay jalla wacala ha ku xifdiye, kusii soco oo kusii wad oo nala qaybso wixii waano wacyigelin ee aad adigaba la jeclaan lahayd walaalahaaga inaad usoo bandhigta. walaalayaal, xalaqadan ayaan kusoo qaadan doonaa xalaqadii hore arinkii aan ka hadalnay oo ahaa ikhlaas. saa soo sheegay, diinteena islaamka ah waxaa loo baahan yahay cilmi iyo camal. sidaasuu Allah jalla wacala nabigiisa ku amray uu yiri faclam annahu laa ilaaha ila allah wastagfir lidambik. faclam, waxaad ogaataa ama aada barataa, faclam annahu laa ilaaha ila allah, annahu shaniya laa macbuuda bixaqin ila allah, ilahay xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa Allah jalla wacala ma ahani. wastagfir lidambik, dembi dhaafne weydiiso oo dembiyada aada gasho ilaahay jalla wacala keli weydiiso. arrinkaas maadaama Allah jalla wacala na amrayo, haddii marna nagala helaa cilmigii oo aan baranaa, maxaana laga doonayaa kadib? waxaana laga doonayaa inaan ku camal falnaa, inay dhab naga ahaataa, inay nolosheena ka mid noqotaa ilaa ilaahay aan la kulmeyno. arrintaasna waxay ahayd sunanta ambiyadii naloo soo diray ayay ahayd. ilaahay nabigiisu wuxuu ku amrayaa, maadaama cibaado aan ka hadlayno, wuxuu leeyahay wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin. ilaahagaada caabud oo u ikhlaas yeel oo u tawaaduc oo ku xirnaa ilaa geerida ay kaaga imaanayso. nebiga ayaa lagu amrayaa, anakane waana la amrayaa. wixii nebiga la amrayo anakana waana la amrayaa. ilaahay jalla wacala marka maxaan u ikhlaas yeelaynaa? maadaama ikhlaaska aan kasoo hadalnay, maxaan u ikhlaas yeelaynaa? culamaa rabbaaniyiin waxay ka hadlaan walaalayaal, ay inoo sheegeen in ilaahay aan u khaalis yeelayno rabbinimadiisa, ilaahnimadiisa iyo asmaadiisa wa sifaadkiisa inaan u khaalis yeelno, asaga keli siina, aanan qof kale ama malaa'ig ama nebi ama awliye alleh ama qubuur ama waxaa doontidba ahaw, ama qof wanaagsan ama sanab, inaanan maaragtay arrintaasi u leexinin, ee ilaahay jalla wacala keli inaan u leexina. sidaas darteed culamaa rabbaaniyiin ayay saddexdaas ayay u qaybiyeen: tawxiid rububiya, tawxiid uluhiya, tawxiid alasmaa'i wasifaat. ilaahay keli inaad arrimahaasi u khaalisa. rabbinimo haddaad maqasheen walaalayaal, saa horeyba usoo sheegay xalaqadii hore, waxaa soo gelaya inuu ilaahay khaaliq yahay, inuu ilaahay maalik yahay, inuu ilaahay jalla wacala almudabbir yahay. ilaahaygi wax walba abuuray, boqorka boqoradooda inuu ilaahay jalla wacala yahay, inuu ilaahay almudabbir kownkan dhan ilaahaygii maamulo inuu asaga yahay, inaad u khaalis yeeshid weeyaan. waxaa kaloo Allah u khaalis yeelaysaa cibaadadiisa, saa idin soo sheegay: tawxiid rububiya, tawxiid aluluhiya, ilaahnimada, cibaadada ilaahay keli ayaa u xaq leh. ilaahay jalla wacala keli ayaa u xaq leh. waa inaad barataa ma hiya alcibaada wa kayfa yani tasixu alcibaada, si cibaadada ku ansaxmayso inaad barataana way fiican tahay. laga yaabo inaan xalaqooyinka kale kusoo qaadana. tawxiidka ugu dambeeya ayaa wuxuu yahay tawxiid alasmaa'i wasifaat, in ilaahay jalla wacala magacyadiisa wanaagsan iyo sifooyinkiisa sarsareeyay inaan ilaahay jalla wacala ku barina, aanan u khaalis yeelna. maxaa ka mid ah Allah jalla wacala magacyadiisa? waxaa ka mid ah alraxmaanu, alraxiimu, almaliku, alquduusu, assalaamu, almu'minu, almuhayminu ila aakhirih. ilaahay jalla wacala waxaa ka mid inuu yahay alxakiim, ilaahay jalla wacala ka mid alcaliim, in ilaahay jalla wacala alkhabiir. waxaasoo dhan Allah jalla wacala ayaa gooni u leh. sifooyinkiisana Allah jalla wacala waxaa ka mid ah inuu ilaahay jalla wacala yahay ghafuur raxiim, mid u naxariista. sifadan wuxuu ku sifooba Allah subhanahu wa ta'ala, yani ilaahay jalla wacala naxariistiisa, sifooyinkiisa ilaahay naxariista weeyaan. waxaa ka mid ilaahay jalla wacala sifooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu Allah jalla wacala yahay al-ghafuur, ilaahay jalla wacala maaragtay adoomadiisa u dambi dhaafo. nacam walaalayaal, ikhlaaska waa shay muhiim ah,
waa shay Allah jalla wacala uuna amrayo, waa shay aan uga duwannahay gaalada, munaafiqiinta, dadka ilaahay wax kale la caabudo. maxaa yeelay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay markii lagaa helaa ilaahay wuxuu leeyahay alaa lilaahi diinul khaalis. diin ayaan ka hadlaynaa, kama hadlayna wax kale. ilaahay jalla wacala wuxuu leeyahay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina xunafaa. ikhlaasku waa muhiim. ilahay wuxuu leeyahay lama amrin ilaa ina ilaahay ku caabudaan ma ahane ikhlaas. wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina, iyagoo u khaalis yeelaya lahu diina, diintiisa ilaahay jalla wacala. shaytaanku wuxuu leeyahay kulligood waa luminaya, kulligood wadada xun ayaan marsiinaya. la adoomadaada kuu ikhlaas yeela ma ahane, adiga kuula baraxtiro, yani wax walbo ay noloshooda ka rabaan adiga lambar wow ka ah, lambar kow adiga ka dhiganayaan. sidaan soo tilmaamay waa caraaritaanka, tala saarashada, baryida, yani u hogaansamida, yani jacaylka, waxaasoo dhan Allah jalla wacala inaad u khaalis yeeshaa weeyaan. nabigeena sala allahu calayhi wasalamne kaana mukhlisan. nebi ibraahim calayhi salaam kaana mukhlisan, mid u khaalis yeela diinta ayuu ahaa. mar haddee ambiyadii saas sameeyeen, anagana waa inaan samaynaa oo ku dayanaa. wajazaakum allahu khayra. baaraka allahu fiikum. xalaqadeena meesha ayaan kusoo gabagabeyneynaa. waa barnaamijkii Ba'ka Adaa, baro ku dhaqan diintaada. diintaada waxay kaa doonaysaa cilmi, camal, tawaaduc, ikhlaas iyo u hogaansamid. aada u hogaansamayso Allah jalla wacala iyo wuxuuna amray nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam. waad ku mahadsan tahay. la qaybso walaashaaga, la qaybso walaalahaaga si ayakana ma aragtay ugu dhaqmaan wixii loo abuuray. markaas waxaa helaysaa ajirka eega ay helayaan mid lamid ayaa helaysaa. arrinkaasna waxaa inoo sheegay nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam.